oo xigo midigta waxaa la dhahaa right anterior. Hello qayrta ku soo dhawaada channelka dhamaan dadka hore la socda dadka cusub dhamaantiin soo dhawaada maanta wax yar waqti ah helay marka waxaan rabaa inaan idinka faa'iideeyo video ni soo duubo oo idin soo dhigo okay hadaa qaylo maqashin kara lahada ciyaalka ila jooga okay waxaan rabaa inaan ka hadlo gabdhaha hadda dhalistooda soo dhow inaan caawiyo oo u sii diyaariyo oo waxyaalaha ugu faa'iideyn karo aan hadda u sii sheego si ay isku sii diyaariyaan okay waa videoga hore waxaan ka hadlayay gabdhaha cunuga dabakeenka bridge baby waxyaalaha caawin karo ay sameyn karaan hadda marka waxaan rabaa inaan ka hadlo isbitaalka iyo waxyaalaha boorsada aad ku ridinaysid iyo waxyaalo kale oo badan aan rabaa inaan uga hadlo videogan okay so isbitaalka magaalada joogtay sharciga wax dhanka iyo saddex qaybood ah jiro oo kala dhali kartid dooran kartid marka wadankii sharciga ku xirantahay inaa heli kartid waxa jira isbitaal inaa ku dhashid dadka adduunka badan isbitaal ay ku dhalaan mid kalena waxa waaye birthing center jiro iyo gurigaada inaa ku dhashid saddexdaas qaybood waay marka isbitaalka hadaa ku dhalaysid oo magaalo weyn deganta isbitaalo badan leedahay hadda sii fiirso mid ku qanciyo oo qalbigaada u roon aad jecesha inaa ku dhashid diyaarso si hadhow markii dhalistaada la gaaro oo macnaha diyaar kuu yahay oo meesha aad u tagtid hadda marka sii fiirso hadda sii tag sii arag wax walba hadda sii indhe hadaa rabti inaad birthing center ku dhashidne isbitaalo waxaa jiro ku dhahay aniga birthing center waa qabnaa ha dhegaysanin because birthing centerka isbitaalka wuu ka baxsan yahay meel gooniyo ku yaala waa adoo gurigaada joogoo kala waaye oo sida gurigaada oo kale u samaysan yahay waxaa ku dhali kartaa biyaha dhexdiisa waa hadaa jeceshaha waaye inaad saas samaysid adiga gurigaada adoo joogo waa comfortable dareemay ama waxaa kasii jeceshaan inaa gurigaada lagu imaado ku dhashidne midwife-ka kugu imaanayso gurigaada ku dhalaysaa saddexdaas qaybooda kala jiro marka hadda la rabo inaad sii indheysid dooratid birthing centerka hadaa dooratid waa adoo gurigaada joogo kale comfortable aad dareemaysaa waa sida gurigaada oo kale waa iskee leedahay oo weyn aad ku dhali karta biyaha hadaa jeceshaa inaad biyo ku dhex dhashid waxaa kula joogto umuliso midwife aa kula joogto marka ama waxaa ku dhali kartaa gurigaada adig leedahay aa ku dhali kartaa midwife-ka kugu imaan kartaa oo ay kugu caawin kartaa marka midwife-ka waa inaa su-aalo weydiisaa licen inay leedahay meeqa ciyaalay soo dhalisay busy mashquul miyaa waqti ma kuu helaysaa waxyaalo badan inaa weydiisid isbitaalka hadaa ku dhalaysid isbitaalka badanaa daktarka hal mar uu imaana uu ku fiirina uu kaa tagaa ama markaad dhali rabtid uu ku imaanayaa uu kaa dhalina uu kaa tagayaa macnaha daktarka ma kula sii joogaayo oo waxaa u baahan tahay qof markaas aad dhalaysid ku caawi emotionally ku support gareeyo oo waxaa rabtid ku qancinayo aa u baahan tahay marka ninkaada hadduu ku raacayo please hadda exerciseyada hore aan video hore kugu soo sheegay la sameeye hadda isii diyaariya sidaa jecesha in lagu masaajeeyo dhabarka hadda usii sheeg waxyaalaha jeceshahay usii sheeg daktarkaad tegaysid hadday ku ogolyihiin halka xoogaa inaad mugdi lagaaga dhigo usii sheeg hadaa rabti daah in la xiro hadaa shaqan rabin aad jecleen hadaa music ama waxaa ku qanacsantaa dhegaysanaysa waxaasoo dhan hadda soo ogow hadda isku sii diyaari waa hadaa isbitaal ku dhalaysid waay hadaa birthing center ku dhalaysidne midwife-ka la kulan hadda la sheekayso wixii su-aalaha qabtid kulli hadaa gurigaada ku dhalaysidne macnaha midwife-ka umulisada sidoo kale qaabka u rabtid u sheeg waxa qof oo ku dhibaayona oo macnaha dhibaato kugu furaayana waqtigaas maalintaas isbitaal iyo meelnaha u wadan qofaa ku qanacsantahay bis maalintaas wado okay marka waa macnaha tala iga tahay siiba hadduu cunugaada koowaad yahay aa ogeyn waxaad samayn lahayd haddaa hore usoo dhashay xataa koley waxaa fiican qofaa ku faraxsan tahay inaa mar walba wadatid sababto jirka haddaa wadatid qof macnaha ku qanacsaneen jirkaaga
وسحرها هدو safe dareemin هدو comfortable ahayn وسحرها marka inuu jirkaas sixir maro waxa la rabaa markaas aad dhaleys waqtigaas inuu jirkaada relax yahay farxad dareemaysid ma fahamto qof markaas kugu caawinaya xanuunka qofku soo xasuusinaya waxyaalaha sameyn lahayd oo kula joogo duula ajiro waa kuwa oo ku caawinaya ilaa inta ka dhaleyso dhan oo culeyska xataa ninkaada ka qaadayo oo ninkaada xataa u sheegaya wuxuu sameyn lahay waxaas oo dhan hadaa duulahaas raadsanaysidna waa kasa way jirtaa dhakhtarkaada weydi wadanka joogto ku xiran tahay sharciga ku xiran tahay waxyaalaha oo heli kartay ku xiran tahay marka hadda isii diyaari okay hadda xaro inaan ka hadlo positionada oo cunugaada oo noqon karo iyo positionka laga rabo markaad dhalaysid okay cunuga waa kana saan markuu yahay calooshaada saan markuu yahay waxaa la dhahaa oo xigo midigta waxaa la dhahaa right anterior markuu saan cunuga xigane oo bidixdaada waxaa la dhahaa left anterior okay marka cunugaada markuu saan yahayne oo macnaha dhabarkaada meeshan oo xigo oo saan uu yahayne waxaa la dhahaa posterior al dhahaa okay marka waxaa la rabaa markaad dhalaysa inuu cunugaada saan ahaado positionkan saan inuu ahaadaa la rabaa cunuga markaad dhalaysid haddii oo lacala cunugaada posterior uu yahay oo markaad dhalaysa la gaaro waxay noqonaysaa in macnaha haddaan noqoshmo ogi hablaha markay dhalaan dhabarka aad i xanuunayo waxaa keenayso cunuga posterior waayo waxaa keenaysa madaxiisa lafta iyo laftaada meesha oo dhabarka ugu dambeeya hoos ay istaabanayo markay istaabato marka adiga dhabarkaa ku xanuunayo marka inaad jilba jabsid sidaa la rabaa markaasoo kale dhabarka ku kala goodo oo ay fooshaadana macnaha cusub tahay oo weli la gaarin macnaha heerkii oo dhakhtarka tegaysa weli la gaarin oo guriga aad joogtid haddee markaas dhabarka ay aad ku xanuunayso waxaad samayn kartaa iska jilba jabso marka tartiibtaada si xoogaa yar oo kaaga soo dabco cunuga macnaha dhabarka xanuunka see kaaga caawiso waa tijaabin kartaa taas markaas waqtigaas marka xaaladaas macnaha ku sugan tahay waa isku dayi kartaa oo fiirin kartaa inay ku caawinayso haddii saas ku caawinin socod isku dayi kartaa haddii socod ku caawinin banooni weyn aa jiro ay ku fadhiistaan naaga uurka waqtigaas macnaha oo ku jiraan xanuunka uu haayo oo bilaaw ay tahay kaas banoonigaas oo kale haddaa haysatid ama soo gadan kartid ku fadhiisan kartaa marka waxyaalo badan ay jirto oo samayn kartid oo macnaha hadda sii fiirin kartid oo su'aalo haddaa qabtid dhakhtarkaada iyo ama umuliso haddaa leedahay umulisadaada iyo waxaad weydiin kartid okay hadda waxaa rabaa inaan ka hadlo cuntooyinka oo aad rabo inaad cuntid okay malaayga oo kale wuu fiican yahay malaay kasta maahan malaayga waxaa jiro oo ku jiro mercury badan lahaa jiro marka malaay walba ha cunin laakiin malaayga salmon la dhahayo oo guduudka ah kaas cun weegii hal mar cun haddaad jecleen omega 3 waxaa ka heli kartaa fish oils kaniini supplements aa ka heli kartaa marka wax walba jirkaada kaniiniga aa qaadanaysa please dhakhtarkaada la hadal u sheeg weydi kala hadal wuxuu ku dhaho sameey dhakhtarkaaga okay marka kaasa qaadan kartaa prenatal vitamins haddaa weligaa qaadan bilaabin dhakhtarkaada kala hadal oo siiba urkaada hadduu cusub yahay inaad qaadatid waa muhiim website aan niisoo dhigi doonaa oo prenatal multivitamins waxaas oo dhan ka order garaysan karta online-ka wadankaa joogteena ku xiran tahay marka mar walba dhakhtarkaada weydii waxyaalahaas kaniiniyaashaas oo muhiimka ah sida u heli kartid iyo qaabka u qaadanaysa waxaas oo dhan weydii haddaa qudaarta iyo fruitska iyo waxaas jecleen inaad cuntid waxaad samayn kartaa waa shiidan laba nooca u shiidan kartaa kow blenderka inaad ku wada ridid qudaarta jeceshahay fruitka jeceshahay sidaa u jeceshahay inaad isku dardartid aad ku shiidan kartaa blenderkaa fiirinaysaa waxyaalaha ka heshid aad ku shiidane aad cabaysaa ama kan aad ku shiidan kartaa waxa dhan intaa gelinaysaa meeshaas kore wuxuu kala saarayaa marka qashinka intuu ku gurayaa biyahana meelaa bahala u dhiginaysaa jirto oo xaggeeyo marka biyahana intuu kasoo baxaya juuska
oo waxaa qudaartii waxaa shiidanaysa dhan intay kasoo baxayaan koob dheer uu leeyahay oo wataa koobkaasaa macnaha meeshaan u dhigaysaa uu kugu wada shubayaa qashinkana inta uu ku shubayaa qaybtan meeshaan uu ku shubaya marka meeshaan bac yar oo qashinka gelin kartaa si hadhow markay qashinka dhan bacda ay u wada galaan waa kasoo bixinay waa tuure ma u baahnid inaad dhaqdid macnaha saasaa kuu fudud haddaad jeceshahay labadaas qaybood macnaha juuska ku samaysan kartaa oo qudaarta iyo fruitska oo nooca jeceshahay aad isku shiidan kartaa marka waxaan iisoo gelinayaa waxyaalo kala duwan smoothies badan oo kala duwan aad samayn kartid waraaqada uu ku qoran yahay aa idiin soo gelinayaa marka kuwaas ama adiga niyadaada waxaa ka jeceshahay aad isku shiidan kartaa marka ironkoo kale hadduu kugu yaryahay smoothie ahaan aad ku shiidan kartaa spinachka keelka iyo waxaas oo dhan inaad isku shiidato aa cabi kartaa mideeda kalena waa muhiim prenatal vitamins inaad qaadatid intaa uurka leedahay marka nooca oo fiican dhakhtarkaada waa inaa la hadashaa oo kala hadashaa oo midka uu kula taliyay markaas aa qaadataa oo wax walba aa ka heli kartid macnaha haddii macnaha cuntaada oo fiicneen aan ka wadaa haddii kalena sidaan kuu sheegay haddaa caadi wax u cuni karin qudaartii waxaas caadi u cuni karin aa jecleen shiido juus ahaan camal u cab okay cunto carbohydrate cun oo sidii brown rice oo kale rootiga oo qamadiga ah oo kale digir lentils sareen ma lahaa waxaasoo kale oo dhan cuni kartaa avocado xataa wuu fiican yahay avocado waxaa ku shiidan kartaa smoothiga adiga waxyaalo badan xataa qudaar sidaan kuusoo sheegay haddaa jecleen caadi u cuntid inaad shiidata smoothie ahaan u cuni kartaa malaagana ha hilmaamin weegi hal mar cun haddaa heli kartid ama supplement ahaan u qaado cuntadaadana asoo cunto ahaana ironkoo kale u qaado sidii spinachka oo kale iyo waxaasoo kale smoothiga ku dhex shiidan kartaa marka cuntooyinkaasoo kale waa fiican tahay oo macnaha waa cuni kartaa marka saa kuusoo sheegay juus ahaan u cab laabjeexa haddaa laabjeex badan aa qabtid aada ka siin waxaa samaysa waxyaalo kala duwan ee hablaha sameeyaan qaar caano ay cabaan caanaha ku filan anoo kale caano la iska cabaa wax kaniini ah uma qaato laakiin kaniiniyaal waxaa jiro oo kaa caawinayo aa qaadan kartid papaya enzymes haddaa soo gadatid oo kale waa ku caawinaysaa qofka waxba maxaa la dhahaa qaaba jirto oo ku caawiso laakiin aniga kaniini iyo kula taliya inaad qaadato haddaa wax kaniini aa qaadanayso oo laabjeexa loogu talagalay dhakhtarkaada kala hadal wuxuu ku dhaho iyo wuxuu kula taliyo macnaha samee jirkaada howl culusuu hayaa marka u roono oo ku dadaal inaa wax cunto fiican aa cuntid iyo socod badan inaa sii diyaarisid oo maskaxdaada jirkaada sii diyaarisid macnaha aan kula talinaya okay dhakhtarka maxaa u qaadan kartaa maalintaa dhalaysid boorsada dhakhtarka maxaa ku ridinaysaa macnaha oo isku diyaarinaysa hospital bag maxaa ku ridinay okay aniga waxaan ku ridinaya shaqsi ahaanteeda waxa waaye shanlo haddaa u baahdo macnaha markaa dhala kadib makeup oo makeupka waxaa ugu ridanaa lacala markaa dhalo kadib inaa xoogaa istatoosiyo sawir famil ahaan haddaa iska qaadeeno ilaa markaa dhashid waa ogtaa waa daalantahay si kalaa tahay marka xoogaa yara waa isna naashaysaa marka makeup saas darteeda u qaadanaya shanlo qasab maaha inaa qaadatid adiga haddaa timahada dabanaysid oo okay waaye sidaa jecesha samee laakiin aniga shanlaa qaadanaya makeup aa qaadanaya waxaa qaadanaya kareen yar oo loogu talagalay siiba adi haddaa cusubta waa kula talinaya oo cunugaada koowaad yahay kareen oo la mariyo naasaha ibtooda oo macnaha markaa cunuga naas siinaysa waxaa lagaa inay ku xanuunto marka kareenkaasa qaadanaya isbitaalo way jiraan oo ku siiyaan kareenkaas aan ku siinaynin way jiraan marka ani kole waa qaadanaa kareenkaas waxaa kaloo qaadanaa barkink oo loogu talagalay cunuga markaa naas siinaysa dhiganaysaa hoos kadib cunugaa ku seexinay way kuu fududaanay marka ma u baahna inaa cunuga maanta dhan saan u haysid marka barkintaasaa cunuga saaranay naasku u dhawaana marka way kuu fududaa kaasna waa qaadanaya
waxa kale qaadanaya kastuumo oo laba kastuuma qaadanaya mid oo macnaha oo isla markaas halka mar ay isticmaashay qashinka ku dareysid iyo mid kale oo caadi oo dhaqaysid ay isticmaalaysid marka staalka badana kastuumooyin way ku siinayaan marka dhishid suufna way ku siinayaan laakiin waa iska qaadanaa kastuumo iyo suufbo hadii la calo wax kasta iska dhici karo laakiin waa u badan tahay staalada way ku siinayaan cunugteeda koowaad waa la siiyay inkastoo anigana aan qaatay marka iskaasho aan qaadanayaa waxaan kaloo qaadanayaa surwaalada aan ii sheego kale oo uurka loogu talagalay aan qaadanayaa fanaanad aan qaadanayaa oo iyadana guluuso leh oo cuyub aa furi kartid rajweeto oo meeshaan ka furi kartid marka cunuga naasiinisa u baahnayn in asiga dhan furtid aan qaadanayaa hospital gowns waxa la dhahayo aan qaadanaya hadaa lacala oo rabin dhakhtarka dharkay ku siiyaan marada ay ku siinayaan hadaa rabin macnaha mid aan soo gadanaya oo dhabarka ka furmi karo lacala hadii u baahdaan in dhabarka furtid marka waxa qaadanaya oo kale mask waa loo baahan yahay maadaama ogtiin xaaladda iska jirto adduunyada oo dhan box dhan aan soo gadanaya waxa kaloo qaadanaya wipes oo meelaha aan kuna nadiifiyo hadaa u baahdo waxa kaloo qaadanaya gacmaha hand sanitizer-ka oo la mariyo taasna waa iska qaadanaya mideeda kale waxa kaloo qaadanaya charger aan qaadanaya marka adiga haday cunugaada koowaad tahay waqtiga uu kugu dheeraan karaa hadaa staar ku dhalaysid waxaan kula talin lahaa inaa daawada cadiga iyo brushkaba iska qaadato lacala hadaa u baahatid inkastoo macnaha 19 saac kugu qaadan kartaa cunugaada koowaad 24 hours kugu qaadan kartaa 15 saacadood kugu qaadan kartaa marka brush cadi hadaa u baahatid iyo daawada iska qaado hadduu ninkaada ku raacayeen isku joog oo comfortable asigana ugu rid barkimo hadaa rabtiin oo idinka aan leedihiin waa qaadan kartiin aniga waa laga yaabaa inaan qaato barkin oo ani gooni music waxa hadaa u baahdan internet waa leeyahay marka youtube-ki waxaasaan ka daaran karaa wax macnaha music waali ma music oo ku dejinaya sheegaya oo degan oo tartiib waxaan ka daaran karaa youtube-ka dhib ma lahan xataa midda kale hadaa rabtid waxaa qaadan kartaa sound machine oo waxa waaye mid oo music kala duwan oo ciyaarka loogu talagalay kaas cunugaada markaa dhishid u daari kartaa qasab ma waxaas u dhan inaad samaysid laakiin waa fikrado caadi aan nila qaybsanayo marka halaas aniga qaadanaya okay cunugteeda maxaa u qaadaya waxaan u qaadayaa pampers diaper staalka badana way ku siinayaan laakiin ani laba xabo saddex xabo camal boorsada iskaga ridinaya lacala wax kasta iska dhici karo wipes waxa waaye midka dabada loogu tiro ciyaalka staalo waxa laga yaabaa inay ku siin wax warqad camal oo ay qoynaysid marka qaarna waxa laga yaabaa wipes inay ku siiyaan caadiga ka siisay marka aniga waa iska qaadanaa wipes waxa kale oo qaadanaya pacifier nuugayso bahalka la nuugayo u qaadaya waxa kale oo qaadaya maro jilicsan oo isku xiran iyada dhan ilaa lugaha u qaadaya isku joog oo newbornska loogu talagalay cunuga markaas dhishto iyo isku joog oo 0 ilaa 3 months sababta ma ogaan kara hadday yar tahay iyo hadday weyn tahay laba isku joog oo kala size aan u qaadaya iskaasho laba xabo camal iskaga ridaa lacala wax kasta iska dhici kara hadaa u baahdo inkastoo maro isku xiran hadaa u qaadaya aan u baahnaanayn laakiin waa iskaga ridaa koofi aan u qaadaya mideeda kale dharka staalka ugu soo baxaysa ama sawir aan ku galeen dhar qurux badan isku joog u qaadayaan car seatka waa muhiim dhakhtarka ugulama soo bixi karta cunugaada adoo car seat wadanin marka car seat oo loogu talagalay newbornska cunuga markaas dhashtay u qaadaya marka intaas cunugteeda u qaadaya anigana intaas qaadanaya ninkaygana waxa laga yaabaa wax yar aan u qaado oo aan isleeyahay u baahan karaa mideeda kale hal mid aan iga iloobo aniga waxaan qaadanaya ay tahay lactation cookies waxa waaye buskut oo kaa caawinayo caanaha macnaha oo ku bilaaway caanaha inaa caano naasahaada ay keenaan kaasaan rabaa inaan qaato
iska sii cuncuno markaa dhala kadib macnaha way fiicantaa la dhahaa soo kaasna waa qaadanaya marka intaas hospital bagayga oo ku jiri doonto aan qaadan doonaa okay midaan rabo inaan siraacsiiyo sida hore inaygu soo sheegay balanteeda beri waaye marka oo sokorta laga soo baaraya oo hablaha uurka leh sidaa niisoo sheegaba sokoraa laga baaraa intay uurka leeyihiin sokoraa macnaha ku dhici karo marka sidaas darteed waa laga soo baaraa waxaa la soo kulmo waa niisoo sheegi doonaa marka waxaan rabo kale takhtarkayga maadaama aan iyadana balan la leeyahay berine oo 2 balan aan leeyahay waxaan rabaa inaan soo ogaado optionada aan leeyahay oo isbitaal waa ogaa magaaladeena waa yarta hal isbitaal leh ku yaalo laakiin inay birthing center ay qabaan ma ogi inaa waxa soo ogaado oo soo indheeyo aan rabaa beri marka hadday u badato inaan isbitaal ku dhalo waxaan rabay inaa waxyaalaha boorsadeeda aan ku ridaayo ay ka mid noqoto hadiyad oo markaas nurse-ka ila joogi doonto maalintaas inaa hadiyad aan siiyo marka maadaama waxaan hadda ay jiro hadiyad badan laga aqbalayn waxaan rabaa gift card inaan siiyo gift card waxaan isleeyahay waa midda ugu fudud oo nadiifsan oo laga qaadan karo ama laga aqbali karo marka lacaga ugu shubaya gift card Starbucks and Tim Hortons aan siinaya marka halaas rab inaan raacsiyo videogan maanta intaas uu ku egyahay see you next time xulkii quruxda tahay miyay xubiyay cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan